sideedaad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha iyo nooca shakhsi ee la filaya in farmaajo u magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qorshaha ay qadar iibinaysa ka hor wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb dowladda federaalka oo qorsheynaysa arrimo ka dhan ah dowladda Kenya madaxweyne farmaajo oo kulan qarsoodi ah magaalada Muqdisho kula yeeshay madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo arrimo halis ku ah Puntland iyo Jubbaland oo ku gadaaman shirkaasi sidee qeyra uga haray baskii nabad iyo nolol iyo qeybaha dambe oo idinkugu soo gudbin doono qarax dhulka la simay guryihii dadka deganaa oo ka dhacay caasimadda Lubnaan iyo meydadka dadka oo la sheegay in meel la kala geeyay la laayahay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku horeynay tan iyo markii uu baarlamaanka xilka ka tuuray ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Khayre ayaa waxaa bilaabatay hadalhaynta ku aadan shakhsiga uu madaxweynaha u soo magacaabi doono xilkaasi 25 Juulaay ayay xildhibaanada baarlamaanka od aqlabiyad ahi kalsoonidii kala laabteen Khayre iyo xukuumaddiisa iyadoo la isla markiiba أيدي قوان كمدحوينها دالكا مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيا لقو وضا إنو مالمها سو سعودو ومقعابو رئيسل وزارها عصوب كاسو نقونا يميدكي لباد ومقعابو مدحيليت كيسا هذا بر رئيسل وزارة نوعي أيا لغفليا إنو سو مقعابو مدحوين فرماجو عبد الله محمد شروع وكتر سنة ورد بلشدة الصوماليات أي أرنتاسي وغور بحيي إذا عدا فيا ويلانت إذا أفكا صوماليا كاس أو إفتيميي شخصية حلقان ku haboon xilka ra'iisul wasaaraha ee laga filayo madaxweyne Farmaajo Cabdilaahi Sharwac ayaa sheegay in xilkaasi loo baahan yahay in loo magacaabo shakhsi in badan la socda siyaasadda dalka iyo arrimaha amniga isla markaana leh karti hogaamineed Sharwac ayaa waxa kale oo uu sheegay in xilkaasi uu buuxin karo shakhsi aqoon leh oo isku wadi kara dhammaan saamilayda siyaasadda kuwaas oo badana ku kala aragti duwan xiisadaha dalka iyo waliba bulshada qeybaheeda kala duwan sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in ra'iisul wasaaraha cusub uu noqdo mid jawi nabdoon dalka uga gudbin kara xaaladda kala guurka iyo xiisadii uu xilka ku waayay ra'iisul wasaarihii ka horeeyay Shirwac ayaa ka digay in xilkaasi loo magacaabo shakhsi uu Farmaajo u meeriyo go'aanada iyo tallaabooyinka siyaasadeed ee uu qaaday taas oo ku tilmaamay nasiib daro aan xilligan loo baahnayn madaxweyne Farmaajo ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka taasoo falanqeeyaasha rumaysan yihiin inay cadeen u noqon doonto rabitaankiisa muddo kororsiga in kale geesa kalena qorshaha qadar ay iibinayso ka hor wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb qadar safiirkeeda u fadhiya caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa olole siyaasadeed ugu jira in villa Soomaaliya hesha kororsiimo ka hor inta uusan dhammaan muddaxileedka madaxweyne Farmaajo Xasan bin Xamza ayaa asbuucan gudihiisa kulamo gaargaar ah la qaadanaya madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle isagoo ka shaqeynaya in mowqif ay la noqdaan dowladda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda Dooxa oo malaayiin dollar ku bixinaysa sidii talada dalka ay ugu hayn lahayd madaxweyne Farmaajo ayaa ka shaqeynaya in madaxda saddexda maamul goboleed ay taageeraan qorshaha dowladda ee kororsiimada marka dib la isugu soo noqdo wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb villa Soomaaliya ayaa xusul duub ugu jirta in go'doomin siyaasadeed ku sameeyaan madaxda dowladaha Puntland iyo Jubbaland bin Xamsa ayaa inta aan xilka laga tuurin Khayre bil ka hor kulamo la qaatay gudoomiyaha aqalka hoose ee Soomaaliya iyadoo la rumaysan yahay inuu kala hadlay barnaamijka xilka lagaga tuuray Xasan Cali Khayre ayaa inta uusan ka qaybgelin kulanka Dhuusamareeb safar ku tagay dalka Qatar iyadoo warar lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta in madaxda Dooxa uu soo Khayre ayaa inta uusan ka qaybgelin kulanka magaalada Dhuusamareeb safar ku tagay dalka Qatar iyadoo warar lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta in madaxda Dooxa u soo bandhigeen inuu iscasilo lacagna qaato si xilka ra'iisul wasaaraha loo siiyo
mucaaradka dowladda oo diidan kororsiimada balse sida xoguhu xusayaan qatar ayaa caan ku ah faragelinta arrimaha gudaha wadamo badan oo ka tirsan jaamacadda carabta kuwaas oo qaarkood dagaal sokeeyo ka dhacay. Turkiga ayaa ka mid ah wadamada xulafada siyaasadeed la ah Qatar oo ay cunuqabateeyeen Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalal kale oo Carabeedka ka tirsan. Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa qarka u saaran inay isku farasaaraan dalka Liibiya halkaas oo dagaal sokeeyo ka socdo tan iyo markii kacdoon xilka looga xayuubiyay hogaamiyihii mayalka adkaa ee Muammar al-Qadaafi. qaybaha hore ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. geesa kalena dowladda federaalka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku howlaneed qorshe ay kor ugu qaadaysa canshuurta qaadka ka yimaada Kenya xilli shalay dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ahaa. sida ay ogaatay warbaahinta dowladda ayaa rabtay inay canshuur dheeri ah ku kordhiso qaadka soo galaya dalka iyada oo muddooyinkii dambe ay ganacsatada qaadka ay culeysyo kala duwan kala kulmayeen dowladda ayaa kor u qaadaysa canshuurta halka kiilo qiyaas ahaan $5 taas oo ganacsatada qaadka ku micneeyeen mid hoos u dhigaysa suurtagalnimada in qaadku wada gaaro macaamiishooda. gudoomiyaha ururka ganacsatada qaadka ee Kenya Kimathi Minjuri oo u waramaya wargeyska Daily Nation ayaa hore u sheegay in dowladda federaalka ay maalmihii u dambeeyay ay kala kulmayeen cadaadis xoogan iyadoo u dambeysay diyaaradii qaadka u siday deegaanada Puntland ee dib loogu celiyay Kenya. Kimathi Minjuri ayaa walaac xoogan ka muujiyay tallaabooyinka ka dhanka ah dowladda federaalka maadaama uu sheegay inay u horseeday khasaare maaliyadeed oo hor lahi. Minjuri ayaa waxa uu kale sheegay in dowladda federaalka ay iska dhiga tirtay cabashooyinka ku aadan tallaabooyinkii u dambeeyay taas oo uu ku micneeyay mid nasiib daro ah. sidoo kale waxa uu dowladda Kenya ku canaantay inaysan dhigeeda Soomaaliya kala hadlin arrimahaas oo dhulka geliyay dhaqaalihii buurnaa ee ganacsatada iyo dowladda Kenya ay ka heli jireen dhoofinta qaadkaasi xilli ay labada dowladood ka dhex aloosan tahay xiisad. dowladda Soomaaliya ayaa ku doodaysa in diyaaradaha Kenya ee siday qaadka ay ku xadgudbeen xanibaadihii cudurka COVID-19 ee lagu joojiyay qaadkaasi inkastoo si tartiib ah loo wada qaaday xayiraadii cudurkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada dalka kula kulmay 3 ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada sida Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. madaxweyne Farmaajo ayaa madaxdan kala hadlay xaaladda dalka oo ay ku jirta arrimaha doorashada iyo waliba hanaanka loo wajahayo shirka 15 bishan ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku soo aadaya xilli xaalad adag uu ku jira dalka isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah aqligu ku jira looga gudbo. saddexda maamul goboleed ayaa xiriir u leh madaxtooyada Soomaaliya waxayna la qabaan qorshe midaysan oo lagu wajahayo shirka magaalada Dhuusamareeb. Puntland iyo Jubbaland ayaa qayb ka ahayn kulankan waxaana inta badan ka hor yimaadeen go'aanadii ka soo baxay Villa Soomaaliya wixii ka dambeeyay shirkii magaalada Dhuusamareeb. qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa inoo soo socda balse markana inta badan saadaaliyaasha caadiga ahi waxay muujinayaan in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre wada dhameysan lahaayeen muddo xileedka isla markaana u wada halgami lahaayeen iyagoo wada jira inay mar labaad xukunka ku soo noqdaan balse malahaasi dhab ma noqon. haddaba sidee wax u dhaceen maxayse isku sheegeen tartanka loo galayo jagooyinka siyaasiga waxay musharaxiinta soo bandhigeen aragtiyo siyaasi ah. musharaxii guusha raacda waxa uu ku qasban yahay inuu hirgeliyo ballanqaadyada uu sameeyay haddii uu rajo ka qabo inuu ku sii jiro siyaasadda. baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay madaxweyne u doorteen mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo February sanadka 2017 dabadeedna waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay mudane Xasan Cali Kheyre. haddaba waa maxay xilka ra'iisul wasaaraha? doorka ra'iisul wasaaraha waa dhaqangelinta siyaasadda madaxweynihiisa. marna ra'iisul wasaaraha ma fulin karo aragti siyaasadeed u gaar ah ama ka soo horjeeda tan iyo madaxweynihiisa inta uu xilka xambaarsan yahay. si kooban shakhsiga ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada waa maareyn maamul siyaasadeed oo kaliya. mudane Daahir Maxamuud Geele ayaa sanadka 2019 iska casilay xilka wasiirka warbaahinta waxa uu sheegay in sababtu isku casilay ay tahay in isaga iyo madaxda dowladda ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan sidaa daraadeedna oo go'aansaday inuu xilkaasi baneeyo.
wasiir Geele ayaa hoosta ka xariiqay in muddo 11 bilood oo xilka hayay ay suurtagali weyday in xagasha aragtidiisa siyaasadeed ay fahmaan ama la qaataan madaxdiisa. waxa uu tilmaamay in siyaasadda arrimaha dibadda dowladda iyo habka xukuumadda ay ula macaamisho maamul goboleedyada ay isku sheegeen. waxa xaqiiqa in wasiir Geele uu muujiyay biseel siyaasadeed. madaxweyne Farmaajo waxa lagu amaanay inuusan ra'iisul wasaarihiisa ku faragelin howlihiisa agaasinka maamulka iyo socodsiinta shaqada xukuumadda ee loo idmaday ra'iisul wasaare Khayre. taasi ayaa keentay in wadanka uu hore u dhaqaaqo marka ay timaado dib u habeynta ciidamada iyo maaliyadda. sidoo kale xukuumadda Khayre waxa ay door weyn ka ciyaartay hanaanka deyn cafinta iyo in si buuxda gacanta dowladda u soo gasho maamulka hawada Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu yeeshay aragti siyaasadeed oo lid ku ah tan iyo madaxweynihiisii, wuxuuna sidoo kale isku dayay inuu awoodda baarlamaanka iyo midda guddiga doorashooyinka qaranka uu hoos u dhigo, isagoo u dhaga nuglaaday dalabka maamul goboleedyada oo damacsanaa in la abuuro madal awood afraad oo aan dastuurka waafaqsaneen, taasoo keeni lahayd in albaabada loo xiro baarlamaanka lana dhinac maro waxqabadkii guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan. waana halkii la isku sheegay. shaki kuma jira in su'aalo ku gadaaman yihiin hanaanka baarlamaanka xilka uga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. taasina waa midda uu la wadaagay ra'iisul wasaarayaashii dalka soo maray 20 sano ee ugu dambeeyay, balse Khayre wuxuu gooni ku yahay inuu durba aqbalay go'aanka baarlamaanka. waxaase la yaab noqotay in markii uu ra'iisul wasaare Khayre uu aqbalay go'aanka baarlamaanka kadib in qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ku cambaareeyeen baarlamaanka hanaanka loo maray xilka qaadistii mudane Khayre, taasoo dhalin kartay fidno iyo qalalaaso horle. intaasi waxaa dheer inay indhaha ka fiirsanayaan faragelinta iyo xaalad abuurka ay Imaaraadka Carabta iyo Kenya ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina boqolaal qof ayaa ku dhaawacmay qarax xoogan oo ka dhacay caasimadda dalka Lebanon ee Beirut, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow dekedda ku taala magaalada Beirut, kaas oo geysay khasaare isugu jira burbur xoogan oo soo gaaray qaar ka mid ah guryihii ku yaalay caasimadda iyo khasaare nafeed oo xoogan. qaraxa ayaa laga maqlay meelo fogaanshahooda uu gaarayo magaalada Nicosia ee jasiiradda Qubrus oo 240 kilomitir u jirta magaalada Beirut. inkastoo aan weli si cad ah loo ogeyn nooca uu yahay qaraxaasi, ayaa haddana muuqaalo laga soo duubay waxaa laga dheehan karay inuu ahaa qarax cabirkiisu yahay mid aan caadi ahayn. macluumaad hordhax ayaa tilmaamaya in qarax uu ka dhashay walxaha qaraxa oo la geliyay gudaha baqaar weyn oo ku yaala agagaarka dekedda Beirut, isla markaana waxyeelo u geysay masaafo aad uga fog dekedda. wasiirka caafimaadka dalka Lebanon Xamaad Xasan ayaa sheegay in qaraxan geysay dhaawacyo boqolaal ah, inkastoo uusan la hadlin haddii ay jiraan dhimasho. muuqaal ay duubtay Al Jazeera ayaa muujinaya qulqul qaqiic xoogan oo bilowday ka hor inta uusan dhicin qaraxa xoogan, waxaana dumay guryo iyo baqaaro waaweyn oo ku yaalay dekedda ku taala caasimadda dalkaasi ee Beirut. qaraxan ayaa waxaa laga maqlay jasiiradda Qubrus oo 240 kilomitir u jirta Beirut, taasoo muujinaysa inuu ahaa qarax cabirkiisu yahay mid